bilaabo agaasimi waxaanu marka hore warshadaha dalka ka jira tiradooda noo sheeg warshadu loo hay anigu warshadaha diiwaan gelinay waxay u qaybsan yihiin warshado shaqeeya iyo warshada aan shaqeyn sideedaba marka qofku hindisaha la yimaado uu doonayo inuu warshad samaysto horta waa la diiwaan geliya marka inta badan waxay dhacdaa inaanay halkiiba kasii qaadan dadna way samaystaan dadkii warshadaha markaa shaqeeya la diiwaan geliyey shaqeeya liis bay noogu jiraan waxay loo yaalaan waaxdan qaabkasina warshadaha tiradooda korka maya laakiin baabuurkii noogu jiraan liis bay noogu jiraan waanu haynaa waa waxaa shaqeeya iyo waxaa shaqeeya noogu gudbiyey marka wasiir waxaa jirta agaasima waxaa jirta wasiirka maaliyaddu waxa ay sheegtay in wasaaradda warshadaha wax alaalaya wax maaliyadoo ka soo xirooda aanay jirin oo qaarkood si hoose idinku loo shaqaysataan baa arrimaha ka waran sharci aan kaga qaadi karo anu lacag ma jiro warshadahana lacag kama qaado warshadaha lay minister baynu yihiin waanu ilaalinaa iyaguna halka walafta waanu diiwaan gelinaa waanu iskormeeraa waxaan ku sameynayaan waxaan u leenahay department dhan oo ilaaliya oo soo kormeera oo khashkeeya haraagooda iyo waxooda basariyaan yani shaqooyin caasa naga dhexeeya laakiin dacadaanu iyada ka qaadna oo sharcina uma lihiin iyana noosiya dakhli dalka waxaa tiri wasiirku waxaa tiri warshadaas wax dalka alaaya waxay ugu filan tahay aan ahayn qarash mushahar dalka dawladdu siiso mooye ma jirto anigu wasiirka u jawaabi maayo afkeeda xaqaanka laakiin waxaan kuu sheegayaa annaga daklina nooma dirin warshadaha iyagaanu taakulayno cashuur dhaaf u samayna wasaaradda maaliyaddaanu noogu dirkaa markaanu u samayno oo raw materialka dibadii kala yimaadaan dabeedna waanu cashuur dhaaf baanu u samaynaa maaliyaddaanu u diraay wasiir iyagaaba ogday wasaaradda maaliyaddu iyagaana dibadna usoo daaya taana waxaa looga daleeya in la dhiirigeliyo agaasba shaqaalihii mushaharka lama siin ma idinkaa mushaharkii shaqaalaha cunay xaggee mushaharkii jira mushahar maqan anaga mushahar naga maqan oo shaqaalaha ka maqan hal qof ilaahay yahay bishaa dhamaatay maaha bishii abli loola jiray shina kama maqan agaasba waxaa jirta wasaaradda warshadaha waxaa ka howlgala shaqaale gaaraya 104 qof sida loo sheegay 4 ka mid a waxay kasoo jeedaan gobolka Galmudug shaqaalaha deegaanka shaqaalaha ka howlgala wasaaradda warshadaha dhinacay ka radeen arrintaadu kaasmahaantii aad maxaad kala socota qolyo ma tirin dee adigu shaqaala weyn waa run 100 qof weyn waa gobolladan qaar baa bariga beeba agaasimi anaga kuu sheegayna midkuba qornaa maxaad beentu sheegaysaa midkuba qornaa maxaad beentu sheegaysaa af gobolada imika ceerigaabo kale berbero kale togleed ma noo magaco way ku qoran yihiin oo mushahar baan u diraa ceerigaabo way ku qoran yihiin waxay ku qoran yihiin burco berbere halka kama howlgalaan laakiin way ku qoran yihiin halka kama howlgalaan caasimada halkaasay joogaan oo ku qoran yihiin sida wasaaradaha kale loogu joogo isduwaalo joogaan oo shaqaale ugu joogo inuu joogaan halkan laakiin waa magaalo keliya ayta ka howlgashaa halkan gabilun ba ka howlgashaa gabilun kama howlgasho wax ka howlgalaa dadku jira waxaa anigu taama garanaya adigu heerkaagii agaasimi waxaa lagu agaasime sidii adag lagu magacaabay beesha tarxiin xad ugu fadhidaa oo inta halkaa agaasimahayd xilka xal laguu siiyey sida horta kala saartay baarlamaanka iyo waxbay la soo baxaan reerowde reer aan ku magacaawnado laakiin anu reer uma shaqeeyo de wasaarad baan u shaqeeya dowladdan u shaqeeya wax xeero xil u haysaa ma jirto oo kaa sugaan maxay ga sugi karaanba anigii waa shaqaalada shaqaalo dowladeed baan ahay maxay ga sugi karaan bis